xabsiga markaan ka baxay nin oo waxaan ahaa la qasbay oo baskool dhigta looga qabtay sidaas darteed ayaa markii shabaab ugu laabtay markii horena fallay ugu soo qaban waa la soo eeday kaliya Mustaf Maxamed Xuseen ma ahan eedaysana caadi ah July 2014 ayaa loo soo xiray argagixisanimo Abriil 2018 waxa uu dhameystay xukun ay ku riday maxkamadda ciidamada laakiin sanad uu banaanka jooga ayuu 8 gaari ku xiray qaraxyo isweydaarsiga qodobada 64 iyo 65 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayaaba doodii ugu horeysay ka dhalatay waxayna qareenada ku doodeen inaan loo qaadan karin ciqaab maxkamadeed oo la siman 5 sano caadista dambi laakiin xeer ilaalinta ayaa ku dooday ku noqnoqoshada dambi xukunka kadib eedaysanaha iyo jaangoynta qodob ciqaabeed oo ka badan dhigaya 5 sano qodobka 64 buuq wahaystaan heer ilaalintu waa fiirin karaan wuxuu tilmaamayaa qof lagu xukumay 5 sano iyo wax ka hooseey caadaysta laguma tilmaami karaa tilmaamaya sida uu qabo qodobka 110 ee xeerka ciqaabta garsooraha ayaa awood u leh isagoo tixgelinaya duruufaha gaar ahaaneed ee qofka iyo dambiga hadba ciqaabta u qalanta inuu ka xukumo laakiin qodobku waxa uu ciqaabtiisu 5 sano ma fiiri 221 hala fiiriyo ciqaabtiisu intaa way ka badan tahay sidaa darteed intaas kadib maxkamadda ayaa ogolaatay in la sii wado dacwadda waxaana xafiiska xeer ilaalinta la yimaadeen markhaatiyaal ay ku jiraan dhibanayaal aan dhaawac nafeed soo gaarin marka laga reebo burburka hantidooda askartii qabatay eedaysanaha kadib qarax uu kula dhajiyay gaari Shaneema Soomaali degmada Waabari May 2019 baarihii kiiska galkii hore ee eedaysanaha iyo qiraalka eedaysanaha ee looga qoray horgeyn maxkamadeed markaatiyaasha dhibanaha ah ayaa wax laga weydiiyay suuragalnimada sida ay ku ogaadeen in gaarigooda qarax lagu xiray laakiin cadeymaha howlkan cadaaladeed diila waxa kamid ah muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV gaashaan Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dooday in eedaysanaha uu bartay habraaca dacwadda sidaasna uu ugu koobay qiraalkiisa burbur hantiyadeed laakiin qabashadiisa ciidamada booliiska 16 May sanadkii tagay ayaa soo xiray farsamooyinkiisii guracnaa bal wuxuu ka dhigtay ID card ama mataqaana aqoonsi oo dawladda ku dhex joogo mataqaana dhibaatan uga dhex sameeyo samaxayla qof yaani shabaabnimo ku cadaatay la xukumay xukun soo dhameystay ee warqadii xukunkii inuu la xukumay soo dhameystay cadaynaysa wata hadana fal dambiyad lagu qaban wuxuu magaalada ku dhex joogaa si caadi ah muwaadinka caadi ah u joogo u dhex jooga wuxuu u isticmaalay eedaysanaha xukunkii 5 sanaha ee u dhameystay ee xabsiga ka baxay dokumenti oo ku dhex joogo dawladdu ku dhex maro ayuu u isticmaalay xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay in laga qariyo shacabka Soomaaliyeed Mustaf Maxamed Xuseen dhammaan intaas markii la isku daro waxay cadeynayaan sida uu khatar ummadda ugu yahay eedaysanaan haatan xiran oo maxkamadda horiyaa taagan kaasoo haatan ka hor isagoo shabaab ah oo qarax baawur ku dhajiyay lagu soo qabtay lana hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku xukuntay 5 sano xabsi ciidana maadaama ay dhimasho iyo dhaawac ka dhicin falkii lagu keenay 5 sano ayuu soo dhameystay dib buu ugu laabtay maanta wuxuu marayaa 8 qarax inuu afkiisa ka qiran yahay qaarna lagu soo qabtay sidaa darteed maadaama nafta Soomaalida oo halis ku yahay ninkan nafta oo halis ku yahay oo uu yahay dambi caadayste aan marnaba ka soo waantoobayn waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah madaxa ku furto xabsi daan inta uu nool yahay maxkamaddu waa maadsanta qareenada u doodayay eedaysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto eedaysanaha maadaama dhagarihii uu falay ay ku qasbeen maleeshiyada al-shabaab gaar ahaan qodobka 23 waxa ka hadlayaa qofka hadii iraadadii doonistiis wax ka baxsan sameeyo oo inta la qasbo asaga oo aan doonayn waxaas inay sameeyo asaga sameeyo ayaa ka hadlaya wuxuuna leeyahay ciqaab lama saar karo qof oo qasad iyo doonis aan wax ku sameeynin Mustaf wuxuu ahaa qof la qasbay oo la tahdiidiyay oo la yiri hadaadan ficiladaani sameeynin shalayto waa lagu xiray waa lagu soo daayay sax laakiin maanta hadaadan la shaqeynin Mustaf waa ku dileena sida uu noo sheegay annaga muwaakiliintiisa ahaan in
la tusiyey dad la dilay oo isaga la saaxiibo ahaa oo barnaamijyadaas iskula jirjireen marka maadaama tahdiidkaas uu ku dhacay cabsi ayaa gelisay sida qiraalkiisii ku cadeed maxkamaddu waa mahadsantahay waxaan ka codsanaynaa in Mustaf eediisa loo qafiifiyo maxkamaddu inay ciqaabta noo fududeyso qodobka 4aad xarafkiisa ga waa mahadsantahay maxamed axmed muumin keenaha miinooyinka maalgeliyaha Mustaf milkiilaha bajaajta ayaa isna maxkamadiintiisa la dhageystay isaga oo maqana ah waxayna xafiiska xeer ilaalinta la simeen codsiga xukunkiisa eedeysanaha maxkamadda hortaagan gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta wabillahi tawfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho